waxa ay qaab naxdin leh u dileen dad badan oo caan ahaa oo dunidan magac iyo maamuus ku lahaa oo xitaa qaarkood adigu aad garanayso. Waa kooxdan lagu magacaabo Maasoniyadda ama Illuminati. Muuqaalkan like saar siina share garee si uu gaaro dhammaan dadka muslimka ah oo ay uga digtoonaadaan qataraha kooxda. Amar maahan ee waa codsi adigoon share gareyn ha dhaafin muuqaalka. Waxaa ka mid ah dadka ay dileen fanaankii weynaa ee dunida laga yaqaanay ee Michael Jackson. Qaabka naxdinta leh ee ay u dileen ayaan muuqaalkan kugula wadaagaya. Waxaan ka codsanaa inaad page-kan follow dhahdo si aan u gaarno 40,000. Maasoniyaddu waa koox isku xiran oo doonaya inay dhammaan caalamka hoos keenaan ama ku mideeyaan hal fikir ama hal diin. Waana diinta shaydaanka. Maxaa yeelay Maasoniyaddu waa xiriir ka dhexeeya shaydaan iyo insaan. Kooxdani fikirkooda uguma yeeraan dadka oo baraha bulshada kama sheegaan. Kaliya waxay ugaarsadaan qof walba oo raba inuu magac iyo maal ku yeesho dunida. Sida fanaaniinta ugu caansan ama madaxda ama jilayaasha. Waxay u soo bandhigaan lacag walba oo uu u baahan yahay. Qasriyaasha dunidan ugu quruxda badan, diyaaradaha ugu casrisan inuu ku socdo. Adduunkan meeshuu rabo inuu degi karo cir iyo dhul. Ujeedkooduna waa inuu fikiradooda ku qanco oo dadka gaarsiiyo asagoo xayeysiinaya dhaqamadooda u gaar. Dhalinyaradu marka ay jeegada jaranayaan waxa ay ku daysan jireen Michael Jackson ayagoo ku andacoonaya dadka lacagta leh ayaa sidan u jarta. Laakiin maalintuu isku dayo inuu fashiliyo ama ka baxo xadkooda, qoorjar ama dil ayay u qorsheeyaan. Dad badan oo dunidan magac ku lahaa ayay qaabab naxdin leh u dileen kadib markay isku dayeen inay fashiliyaan ama ka baxaan. Qofka ugu horeeya ee ay dunidan dhaafiyeen waa Michael Jackson wuxuu noqday fanaankii ugu caansanaa uguna saamaynta badnaa xilligiisa. Masraxyada dunida iyo qulubta mucaashaqiinta fanka ayuuna hal mar wada qabsaday. Sidoo kale dadku waxay ku jeclaayeen dhaqan wanaagsan oo ah inuu cunsuriyadda necbaa oo la dagaalami jiray. Asaga iyo haybsooca ama midabta koorkana qad cagaaran ayaa dhex yaalay. Dadka la cunsuriyadeeyo ayuuna u doodi jiray. Michael Jackson waxa uu dhintay 2009 laakiin qaab la yaab leh ayuu u dhintay. 2005 waxaa la faafiyey muuqaal yar oo codkiisa ah oo asaga laga soo duubay. Michael Jackson waxa uu dhahayay sideen ku noqday qofka dunidan ugu caansan oo meel walba lagu sheego, waliba anigoo cayr ah oo faqiir ah, micnaha aan waxba haysan. Waxay iga dhigeen qofka ugu caansan oo meel walba laga hadal hayo. Markii muuqaalkaas baraha bulshada qabsaday waxay dhammaan bulshada caalamka u fahmeen inuu amaro kale oo asaga ka weyn ku shaqeeyo. Ninkan astaamahan iyo dhaqamadan uu xayeysiinayana ay kooxo kale oo qarsoon u soo dhiibteen. Marka qoladii qarsooneed ee Maasoniyadda ama Illuminatiga arrintaas ayaa naxdin ku noqotay, aad ayayna uga xanaaqeen. Waxay arkeen inuu wax u iftiimiyey dadkii uu caanimadiisa iyo heesihiisa ku soo jiida jiray uuna dhaqamadooda bari jiray. Markaas wixii ka dambeeyana ciriiri ayuu dareemay, in la daba joogo ayuu dareemay. Si cad masraxyada uga sheegay inuu daalay, la qasbayo, asaga ka awood badanna ay ku shaqaysan jireen. Qoladan Maasoniyaddu waxay ka fakareen inay diyaariyaan shirqoolka ay ku dili lahaayeen Michael Jackson. Waxayna u tageen dhakhtarkii gaarka ahaa ee Michael Jackson. Wayna handadeen oo waxa ay ku cabsi geliyeen dhakhtarka haddii uu Michael Jackson dili waayo inay asaga iyo qoyskiisa iyo carruurtiisaba halaagi doonaan. Michael Jackson oo tacbaan ah ayaa dhakhtarkii loo soo geliyey, isla markaasna Michael Jackson waa uu dhintay. Arrinta la yaab kale ayaa ah in dhammaan saxaafadda loo diiday inay gudaha u galaan Michael Jackson intii uu jiranaayo, waxaana lagu diiday amaro sare oo madax ka soo baxay. Taasina waxay ku tusinaysaa inay kooxdan madax badan oo caalamku xitaa u xoreysan yihiin. Qaybta hoose aragtidaada noogu reeb muuqaalkana sii faafi.